mudanayaal waxaan gudagalaynaa shaqada inoo xigta waxa inoo jooga mas'uuliyiin xasaanad u baahan marka waxaan rabnaa in loo yeedho wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magacaaban mudane cabdiraxmaan yuusuf faarax sida ku cad digreeto madaxweyne oo hortayda taal ku taariikhaysan bishii 6 18keedii 2022 ujeedaduna ay ahayd xasaanadsiin wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dawliyaal oo hortiina fadhiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdiraxmaan yuusuf faarax oo ku jiray kamid ahaa 29kii wasiir ee madaxweynuhu xasaanadta u soo codsaday ee 26 kamid aynu siinay saddexdii wasiir ee maqnaa mid kamid weeye sidaa daraadeed waxaan codsanayaa xogayuu inuu akhriyo golaha hortiisa ka akhriyo qoraalkii madaxweynaha mudane gudoomiye waa mahadsan tahay warqadda tirsigeedu yahay 101/2022 Garowe June 18 2022 gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo xasaanadsiin wasiiro iyo wasiir ku-xigeen mudane gudoomiye waxaan halkan kugu soo gudbinayaa xasaanadsiinta wasiirka golaha wasiirada ee u baahan la siiyo xasaanada xubnahaas oo la magacaabay intii u taxaysay labada kala fadhi ee golaha wakiilada dowladda Puntland mudane gudoomiye haddaba si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo waxaan si xushmad iyo qadarin leh golaha wakiilada uga codsanayaa in la siiyo xasaanada mudane gudoomiye ku soo dhawow mudane wasiir ku soo dhawow kalfadhiga kontonaad fadhigiisa soddonaad maanta ay taariikhdu tahay 30kii bishii 7 2022 intaanan ku weydiin golaha kalsoonida xasaanada mudane wasiir waxaan ku siinayaa 5 daqiiqo oo aad taariikh nololeedka golaha kaga hor akhrido ku soo dhawow wasiir mudane gudoomiye ku-xigeen dhammaan xildhibaanada sharafta leh howlwadeennada golaha wakiilada bahda saxaafadda ciidamada dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay madashaan quruxda badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye ku-xigeen iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh haddaan wax yar ka dulmaro CV-ga ama taariikh nololeedkayga waxaan dhashay 1972 ama 1972 meel 7 kilomitir u jirta degmada Gaalkacyo ee la yiraahdo Galxamur iskoolka hoose dhexe waxaan uga baxay Xamar dugsiga sare waxaan ku dhigtay magaalada Gaalkacyo digriga koobaad ee jaamacadda waxaan ku dhigtay dalka Yaman jaamacatul iimaan shariica wal qaanuun xilalka aan ka soo qabtay Soomaaliya 2010kii waxaan ka mid noqday xukuumaddii dawladdii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif wasiir ku-xigeenka batroolka macdanta biyaha iyo enerjiga 2013kii waxaan ka mid noqday dawladdii Cabdullaahi Ninkiliyahado Faroole madaxweyne Cabdiraxmaan waxaan ahaa taliyaha nabad sugidda Puntland 2014kii waxaan ka mid noqday xukuumaddii dawladdii Cabdiweli oo aan ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeynta hadda waxaan madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ii soo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan rabaa marka waqtiga oo kooban inaan xildhibaanada sharafta leh aan ka codsado inay siiyaan xasaanada aad iyo aad baad u mahadsantihiin kooramku waa 47 codayntuna waxay u dhici doontaa sidan ogol diidmo iyo aamus insha Allah bilakrim mudanayaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magacaaban ee hortiina fadhiya cabdiraxmaan yuusuf faarax oo madaxweynuhu golaha u soo weydiiyey in la siiyo xasaanada si uu howlgalo
yaa ogol in xasaanada la siiyo mudanayaal dhammaan bay noqotay kooramku waa 740 diidma ma jirto amisna ma jiro mudanayaal codayntu waxay u dhacday sida tan kooramku waa 740 in xasaanada la siiyo mudane cabdiraxmaan yuusuf faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ogol waa 740 diidma ma jirto amisna ma jiro sidaa daraaddeed wuxuu helay aqlabiyadii golaha intii fadhiday codkii mudane wasiir waa ku ambaleynayaa kusoo dhawow saacada laga bilaabo oo goluhu xasaanada ku siiyey waxa tahay wasiir ku-xigeen buuxda oo shaqadiisa iyo waajibaadkiisa sida dastuurku uu farayo uu qabanaya mudane wasiir waxaan kula dardaarmayaa golaha wakiilada dowladda Puntland saddexda hay'adood dowladda waa hay'adda ugu sareysa sida ka muuqata xasaanada muddo sugaysay waa ka maanta xasaanada ku siiyey waxaa laga rabaa mudane wasiir inaad wada shaqayn rasmiya oo wanaagsan golaha wakiilada dowladda Puntland aad la yeelato la shaqayso waxa jira gudiyo goluhu uu leeyahay oo 10 gudiya oo hay'adaha dowladda wada shaqayn kale gudiga arrimaha bulshada dhaqanka warfaafinta iyo isgaarsiinta ayaa wasaaradiina kamida gudiyada shaqada leh waxaa laga rabaa inaad gudigana si wanaagsan oo la shaqaysid mudane wasiir waxaad u hogaansami karaysaa oo kaliya dastuurka dowladda Puntland sida uu qabo sharciga dalku haddii aanay ka hor imanayn shareecada islaamka dastuurka dowladda Puntland oo kaliya baad u hoggaamsamaysaa waajibaadkaada wacaynka iyo xeerar kale ee dalku leeyahay waa ku hambaleynayaa dardaarankayaguna waa intaa aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa inaad maanta aad timi oo golaha xasaanad weydiistay goluhuna waa ku siiyey shaqadaadii baadna iminka u fasaxantahay inaad shaqo tagto mudane wasiir waxa aan kelmadeedii dardaaranka intaasay ahayd hambalya ayaan ku leeyahay wasiir maan xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin marka inayniga kala harino waa sharaf bay ii tahay guddoomiyahana bal waxaan halkan ka ballan qaadayaa gudiyada khuseeya waxbarashada iyo tacliinta sare inaan ka soo dhalaalo insha Allah taala ummadana cadaalad ugu shaqeeyo imtixaankiina hadda sidaad ogtihiin hadda waa gabagabo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad saaxiibaday wajiyadooda aan jeclahay halkan adduunka ilaahay waa ka aamusay baa ugu nabcahay marka haddaad intaas maanta iga badbaadiseen aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu